بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta idin siinayaa qaybtii labaad ee Englishka lagu dukaameysto inta aan bilaabay marka hadana waxaan idinku wargelinayaa in aad bal la share gareysaan walaalihiin saaxiibadiin Soomaalida kale si ay uga faa'iideystaan maadaama ay yihiin casharo aan ugu talagalay in aan runtii si bilaash aan ku siiyo ardayda Soomaaliyeed sidoo kale ay jirto casharo aan ku bixiyo Telegramka oo bisha November hatta aan bilaabay markii qofku u baahan isaguna uu nala soo xiriiri karaa oo halkaas ayuu isagana ka qaadanaya casharo min bilaaw ilaa dhamaad leh oo wax yar oo iska bixinaya ardayga waad baahantihiin marka qaybta aan maanta qaadanayno waa qaybtii labaad English for shopping waa Ingiriiska loogu talagalay in lagu dukaameysto maanta marka waxaan xoog ku saareynaa bal erey gaar ah oo dukaameysiga la xiriira tusaale ahaan markaan leenahay erey muhiim ayaa jiro oo la try it on isku fiiri waa macnaha marka aad shay qaadato ninka meesha jooga wuxuu ku leeyahay try it wuxuu u taagan yahay shayga aad markaa qaadatay onna waa la raaciyaa try it on isku tijaabi shayga waad qaadatay waxaad rabtaa inaad hubiso bal inuu kula eg yahay inuu ka weyn yahay inuu maartay ka yar yahay inta waad fiiri kartaa marka waxaad leedahay try it on isku fiiri please try it on isku fiiri isku tijaabi marka adiga marka waxaad dhihi kartaa can I try it on dhihi kartaa isku fiiri karaa macnaha okay bal adigoo u jeedo oo qaab oo kombiyuutarta ah aan in kugu sharxo si aad si fiican oo waadixa aad farta ugu aragtaan jumlada ugu horeysa can I try it on ma isku fiiri karaa ma isku tijaabin karaa dharkii aad dooratay markaas waxaad leedahay can I try it on ma isku fiiri karaa can I try it on qofkan wuxuu ku leeyahay try it on isku fiiri waxaa laga yaabaa ninka dukaanka markaa joogo wax ka iibinayo ama gabadha ama wiilka markaa ku caawinaya in uu ku yiraahdo shaati aad dooratay ka soo qaad wuxuu ku leeyahay this shirt shaatigan fits you waa kula egyahay this shirt shaatigan fits you waa kula egyahay would you like ma jeclaan lahayd to try it on inaad isku fiiriso this shirt shaatigan fits you waa kula egyahay would you like ma jeclaan lahayd to try it on inaad isku fiiriso adiga waxaad dhihi kartaa can I try it on ma isku fiiri karaa yes try it on isku fiiri try it on isku fiiri lagu leeyahayba try it on isku fiiriyo isku tijaabi laba erey hadan dhihi kartaa marka where are the changing rooms awe qololkii la saga bedelay dharka dadka horta isaga bedeli karsi dabiiciga ah where are hadii aad qolol weydiiso are la keenaa hadii bataan qololka la isaga bedelo dharka waa xagee markaad leedahay where are arkaysa ila jamca soo wadaay where are the changing rooms waa xagee qololkii liska where are the changing rooms xagee ku yaalaan qololkii la isaga bedelay dharka ama hadda hal qol rabtana where is marka where is the changing room awe qolkii la isaga bedelay where is the changing room awe qolkii la isaga bedelay ama waxa dhihi kartaa I will just try it on here halkan u baan isaga tijaabinaya adoo meel kale aadin I will just try it on here halkan ayaan isaga fiirinaya marka waxaan qaatay marka laba erey ayaan rabaa inaan si gaar ah sidoo kale idin baro oo muhiim ah oo ah if hadii something shay fits you oo kula eg yahay it means macnaheedu waxa weeye that is shaygaasi ama it is isagu wuxuu yahay the right size cabirkii saxda ahaa for you buu ku yahay it is waxa weeye the right size cabirkii saxda ahaa for you ayuu adiga ku yahay shay kale waxa lagu dhihi karaa shaygana kugu soo baxaya marka waxa la qaataa if hadii marka something shay suits you if hadii something shay suits you oo kugu haboon yahay waxa loo jeedaa it means macnaheedu waxa weeye it shaygaasi looks good on you waa kugu soo baxaya midab qof kasta wuxuu leeyahay midab ku soo baxayo shaati uu ku soo baxayo marka waxa leeyahay it suits you alule kugu soo baxaya waay
it means waxa weeye shaygaas aad dooratay it shayga lookiisa u muuqdo good mid kugu fiican on you adiga kugu soo baxayo. That is right ama that it's right for you ama ku saxan yahayba. Hadda ka soo qaad waxa lagu yiri orange midabka la dhaho looks good on you. Marka haddii shay kugu fiican labaas baa qaadan kartaa. This shirt shaatigan looks good on you waa kugu soo baxaya. Ama si kale u dhaho this shirt suits you waa kugu soo baxaya. This shirt shaatigan suits you waa kugu soo baxaya. Marka casharkeenu maanta qaybta labaad waxaan aad u eegaynay habka dharka la soo tijaabiyo. Okay, aan fiirin mar kale. This shirt shaatigan fits you waa kula egyahay. Would you like ma jeclaan lahayd to try it on isku fiiriso? Adigana waxaad tiri can I try this on? Kan ma isku fiiri karaa? Yes, try it on isku fiiri. Where are the changing rooms? Aawe qolkii wax la isaga bedelayay ama hal qol daar hadinaysana where is the changing room? Aawe qolkii wax la isaga bedelayay ama si kale waxa u tiri I will just try it on here halkaan isaga fiirinaya. I will just try it on here halkaan isaga fiirinaya. If hadii something fits you wax kula eg yahay it means macnaheedu waxa weeye that it is inuu yahay the right size cabirkii saxda for you inuu ku yahay. If something suits you haduu shay kugu haboon yahay ama kugu soo baxayna it means that it looks good on you inuu si fiican kugu soo baxayo oo ah that it's right for you oo inuu kugu saxan yahay. Waxaan filayaa inaad si fiican u fahamteen haatan. Dukaankii waad gashay si sahlan waxaad tiri can I try it on isku fiiri karaa. Can I try it on isku fiiri karaa. Try it on isku fiiri kuleyn ayaga. Marka qaabkaasi onta laga marraba ereyga try these shoes on kabaha isku fiiri kuleeyeen. Marka casharkeena maanta qaybta labaad intaas aan ku soo ekeenayaa. Masha Allah la wadaag ardada kale saaxiibada ah si share gareey si dad badan uga faa'iideystaan sida idin ku wargeliyana waxa jirta koorso aan bisha November bilaabay oo idin ka socdo Telegramka qofkii u baahan idina wax yar isku bixinaya uuna la soo xiriiraya. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidoo kale qofkii u baahan inuu si foolka fool iyo helo waxaan wax ka dhigaa iskuulka ku yaala Al-Cimra kilometer 4 magaalada Muqdisho. qofkii raba idana halkaas toos igu imaan karaa. aad iyo aad u mahadsantihiin ku soo dhawaada page-kayga Cabdirasaaq British Online.